inaan dhalinyarada dhiirigelin waajibaad baa naga saaran kulley waanaan waajibaadkiina saarnay inoo doorteen iyagana inaynu mustaqbalkooga toosino insha Allah ilaahina la garab galo wixii wanaagsan la qaban karna inaan loo qaadano iyaguna degmadooda ay la shaqeeyaan iyo dadkooga iyo dalkoogaba waa group marka hore daraawiishta ahayn laakiin imika waa serbi heerka labaad ee dawladda hoose iyadoo heerkooda ay dawladda hoose hore u lahayd magaca imika ku shaqeyn doonaan waa ka marka labada kooxood waa labo kooxood oo miisaan ku leh gobolka iyo guud ahaan Soomaaliland waanu garab istaagaynaa dhalinyarta wax kasto rabitaankooga uu yahay oo wanaag ka soo muuqdo runtii iyagana waxaan leenahay wixii bulshada uu dan ah inaan ka wada shaqeyno inta aanan dariiqa saxda Ilaahay ka leexiyeen inay u duceysaan oo dhalinyarteeda la midka ah si iyaguna dadkooga la mid noqdaan waayo bulshadu isku mid ma runtii waxaan leeyahay waa dhalinyarada lagu soo hirto hal lagu daydo dhalinyaradu barnaamijyada ay laga wacyi gelinayo mukhadaraadka iyo waxyaabaha kale ee ku keeni kara mustaqbal xumada laga wacyi geliyo laakiin yaan loo horseedin dariiq khaldan ama meel khaldan oo mustaqbalkooda mugdi geliya aad iyo aadna waa mahadsantiin waa idinku soo dhaweynaya adeer kiili hoon wada garab taagana bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay mahad marka hore marka labaad waxa mahadle maayarka degmada Boorame gudoomiye Saleebaan Xasan Xadi anoo mahadnaqaya maayarka degmada dhalinyarada gobolka dhamaanteed heel iyo hooga uu la garab taagay markaste sidoo wax ugu qabto fisido wax walba ay doonayaan uu siiyo maanta ana ku hadlaya magacii teamkii Serbia daraawiishta maanta maayar Saleebaan wuxuu noo ogolaaday inaan ku ciyaarno magaca dawladda hoose ee B iyadoo jirta dawladda hoose ee uu macalinka ugu weyn gobolka uu ka yahay Ayub Cabdiraxmaan Yuusuf oo halkan ka salaamayo waxaan aad iyo aad mar walba ku dhiirigelinayaa maayarka sida dhalinyarada gobolka ay u jecel yihiin fiisada haday noqoto wax loo qabto inuu u qabto anaguna waan duceynaa inuu Ilaahay cimrigiisa iyo caafimaadka u barakeeyo anoo afku hadlaya macalinka teamka daraawiishta gobolka oo hadii ku ciyaari doona magaca dawladda hoose ee Boorama heerka labaad ee gobolka ee Zerbi aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maayar Saleebaan Xasan Xadi dhiirigelinta markasta uu naga joogo waan u duceynaa inuu Ilaahay wuxuu ka soo saaray meesha isla bedel khayr qaba Ilaahay u geliyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaal qaaliya walaalkay Abshir Xuseen Maxamed Xadi oo isna markasta dhalinyarta magaalada oo dhan garab taagan hadii noqoto wax qabad haday noqoto fisido markasta dhalinyarta la dadaala hadalkay intaas soo koobaya وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.